dhismahan oo ku fadhiya dhul cabirkiisu yahay 18 mitir iyo 24 mitir waxaa nashqadeysay shirkadda Dalsoor Architect waxaana fulinaysa dhismahan shirkadda Dalsoor Construction oo ah laba shirkadood oo mataana ah. haddaba dhisaynkani waxa uu ku fadhiyaa dhul cabirkiisu yahay 18 mitir iyo 24 mitir waxaanu ka kooban yahay 5 qolo hurdo ah iyo 2 suuli oo mid yahay key masterka oo waasaca fadhi iyo cunto isku furan. sidoo kale intaa waxa dheer oo dhismahan uu ka kooban yahay surface leh kitchen iyo storekeedii laundry maryaha lagu meedhanayay qolkii waashmaanka iyo waliba qol kale oo surface iyo suuligiisii. intaas waxa dheer oo dhismahan uu leeyahay parking uu gaarigu ku hargalayo mararka qaar koodna la iskaga leersan karo la iska fadhiisan karo. waxa iyaduna meesha ka maqnayn dhul banaan oo beero aad ka samaysan karto. haddaba dhisaynka markii aanu dhamaynay kadib waxa loo gudbiyay qaybta fulinta dhismayaasha ee Dalsoor Construction. shirkadda Dalsoor waxa ay bilowday sidii ay u fulin lahayd dhismaha. waxaanu markii koowaadba samaynay maadaama meesha dhismaha laga sameynaya ahayd meel garowa badan ku baxay qashin badan yaalo inaan soo kaxaysano qalabka culculus sida cagafyada iyo iska rogooyinka kadibna meeshii lagu nadiifiyo dhammaan wixii dhir iyo qashin yaalena laga qaado. markii meeshii la nadiifiyay clearance-kii la sameeyay waxa ku xigay in la sameeyo site alignment-igi ama calaamadintii halkii dhismuhu uu mari lahaa ama uu ku dhici lahaa kadibna lagu bilaabo qodaalkii iyadoo oo la qodayo ilaa inta dhul adayga laga gaarayo isla markaana laga soo saarayo wixii jirido iyo hadhaaya qashin ee ciidda hoos galay. markuu qodaalku dhamaado kadib waxa aanu bilownay dhismihii annagoo ka bilownay seeskii u hooseeyay ee dhismuhu ka soo kacayay. waqti xaaliganna halkaas ayuu dhismuhu marayaa. insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa markuu dhamaado inaanu idinla wadaagi doono sida uu ku dhamaado annagoo oo designka la sameeyay step by step raaci doona oo soo saari doono dhismo u eeg isla nashqada oo macmiilku ku qancay. haddaba cid kasta oo u baahan nashqad ama dhisme nagala soo xiriiraan lambarada shaashada ku qoran. mahadsanid.